ciidamadii ugu badnaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray duleedka Garowe halkaas oo ay ka galeen diyaar garowgii ugu dambeeyay ayadoo magaalada Garowe ee Puntland laga dareemayo siyaasan colaadeed oo dagaal isla markaana ay doonayaan ciidamada maamulka Puntland inay weeraro ay ku beegsadaan ee qaybta 54 ee xoogga Soomaaliyeed ee magaalada Garowe. dhaqdhaqaaq culus ayaa ka jira ee Garowe isla markaana xiisada halkii ugu xumeed ayay sii mareysaa kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ay isweydaarsadeen weeraro afka ah iyadoo madaxweynaha Puntland uu sheegay in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxyaalaha uu ku hadlayo aysan ahayn wax isaga maankii ka yimaade laakiin taa bedelkeeda uu sheegay in laga dhaxadlayo maskaxda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ciidamada dowladda maamulka Puntland ay joogaan isla markaana ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya uu sheegay inay yihiin ciidamo taabacsan xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu sheegay cidna inaan wax laga weydiin doonin arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qabanayso ee gobolada dalka. Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu iscaburin karo oo kaliya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani laakiin uusan waxba ka bedeli karin isagoo sidoo kale sheegay in ilaa 20 sharaxan ay u bixin doonto dowladda federaalka Soomaaliya xitaa haddii iyadu ay doonto. sidoo kale wuxuu sheegay in askari oo ka soo lugeeyay magaalada Boosaaso oo lagu soo gaaray gudaha caasimadda Muqdisho Soomaaliya taasoo sheegay ra'iisul wasaaraha inaysan ahayn wax damiirka bini'aadamka aqbala isagoo sidoo kale sheegay in hadda kadib dowladda federaalka Soomaaliya ay howlaheeda shaqo ay qabsanayso. horey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa u sheegay in tallaabo horle ay qaadi doonaan isagoo sidoo kalena sheegay in ciidamo iyo sidoo kale shaqaale horle ay ka qoran doonaan magaalooyinka Puntland taa ugu wacan tahay inaysan cidna soo faragelin doonin waa sida isagu uu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. xiisadu safara ayay ka sii baxday iyadoo Garowe ay isku horfadhiyaan ciidamada qaybta 54 ee xoogga Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland oo ka amar qaata Saciid Cabdullaahi Dani. saacadii la soo dhaafay ciidanka maamulka Puntland ayaa xiray wadooyinkii iyo goobihii ugu muhiimsanaa ee magaalada Garowe kadib markii cabsi laga qaba in dhaqdhaqaaqyo culus ay sameeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya taliyana ka ahaa taliyaha Jimcaale Takar kaasoo la sheegay saacadii la soo dhaafay in dhaqdhaqaaqyo culus oo ka waday ee Garowe iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee maamulkaasi ee Puntland.